munaasabadan oo ahayd mid ay xilalka kula wareegayeen gudoomiyihii hore ee gobolka Sool mudane Maxamed Faarax Aadan iyo gudoomiyaha cusub ee dhawaan loo soo magacaabay gobolka Sool Yaasiin Maxamed Shide ayaa maanta lagu qabtay Hotel Xamdi ee magaalada Laascaanood. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool maayirka degmada Laascaanood, taliyaha qaybta booliska, taliyaha ku-xigeenka ciidamada militariga, gudoomiyaha degmada Yagoori, gudoomiyaha waxbarashada gobolka Sool iyo qaar kamid ah isuduwayaasha wasaaradaha ka howlgala gobolka Sool iyo sidoo kale marti sharaf kale aad u tiro badan iyadoona ay hadalka isaga dambeeyeen odayaal waxgarad haween ayagoo dhamaantoodba soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee gobolka Sool sheegana inay la shaqeyn doonaan iyadoo anigu sida amaanta badan loo dheereeyay u dheereerinay laakiin waa sogootiyaal mar haddii inaga tagay waa ku sogootinay iyadoo ay nufilanay wax badan oo dhulka magaalada yaala oo haatan aan magaranaysaa kolley dadku aanay magaranaysaa wada jeclaysan inay iska dhacaan haddana maanta waa ku sagootinay adiga waayo gudoomiyaashii aad ugu dambeysay wax fiican baad qabatay waxaanu sagootiyeynaa Maxamed Faarax Aadan gudoomiyihii hore gobolka Sool oo sida sharaf kale u soo shaqeeyay muddadii uu joogay waanu sagootiyeynaa waxaanu leenahay الله باركيو حل وناكسن أو شرف لما قبل كسوق قبتي شرف تعدينا والله تكتي والله وكل يحيى قبل كسول وأنا كمان ما أنت قبل وما أنت محمد فارح يمين أيها سنة بنورك على نصيحة الله سبحانه دبد إلهي بهيا لكن وحنورك على وجهها فوضاله أن بدوها أديكنا إلهي وحنا كاجر الجيرين إنه أديكنا كارديو فوضاله وذلك كسي ودي وحضرت كده أنا مرتجل هاي نقول بكل واحد بحب على جالس وياه حفيزنا ولا مرتجل دولا نقول مثلا سوسي حاجات كده هاي بلغات دولية وحقلوتها أقول ترى يا دتك بين عالم كهي هدين يوم وحقفصن إذا هو مقام هدين يوم نبض كشقي كنت حالة جودة قبل قتلكم دول مرة قبلكم قدومي وقبل دقن نبض قليو تاما يا كجرت إن شاء الله تعالى إلهي ما كان أنا كمان نكين دتوينها كمان نجسي يهيل يهو هذا نال كتير سنين كل واحد قال ابن مجرين وضي قمر إسلام قليل مامور هذا نجع ما يسيسن وحلا وحنا هرجل لها مجرم أدينا ما حكومة حبينا يا كوكونا سود وينيا سيدا يسيك ونكسن إن كوراش عندهم gudoomiyaha hore ee gobolka Sool mudane Maxamed Faarax Aadan oo goobta ka hadlay ayaa ka warbixiyay waxyaalihii uu qabsoomeyntii uu xilka hayay isagoo kula dardaarmay gudoomiyaha cusub inuu si cadaalad ah ugu shaqeeyo bulshada gobolka gudoomiyaha cusub waxaan ku soo dardaarmay isaga sidoo kale uu sheegay bilaadka waxa taqdo waa cadaalad wax kale oo dadka ka jirto in lacag jeeb ugu shubi kartid dad ma shaqaaleyn kartid wax kale ma sameyn kartid laakiin waxa uu soo gaaray inuu muddo si cadaalad u gaaro in ma qaar ku dardaarmay الورجيت إن شاء الله تعالى أقول شيء الدنيا عصب وهي شقاق وكتوري عقاشة أقرب حفيزك وحركلو شري قدومي واحد دينا ساعة جوا فينا كعتين ورقان عدم كبير يا شيء والله واحد ما شاء الله سأقول واحد بسرعة يا قدومي عصب كمان في سنة شهر كمان كذي هذا ياسين محمد شيء بسرعة قدومي يرسلوا وحلاش وهي حقيقة النقطة ومركا روح أولدنا وقفنا عن قف waxaan kaloo mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ii magacaabay inaan mas'uul ka noqdo oo ii soo noqday gobolka Sool waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyihii iga horreeyay oo reer Sool aad moodo inuu qalbigeeda aad ugu yaallo insha Allah waa u ducayseen waa amaanteen إلهي وأقبلها. أولاً أنا هرسل وحنا كلنا تداربيا. مقر إلهي عبسي سكلنا تداربيا. وايو عن جونا دار الممر من جونا. دار بيو جونا وحنوق بين دار الممر. ماشي النجاسيها. كوحنا لا وتسودوا بين خير سادة. وقفنا إلهي مرنا ما يسترو. لكن وحكود ذلك إن عن مرة وضدي ومري بدوبيه يجوريه
محمد آدم gabagabadii agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa xilalkii si rasmi ah ugu kala wareejiyay labadaasi gudoomiye iyadoo halkaasi shahaado sharaf lagu gudoonsiyay barasabka hore ee gobolka Sool Maxamed Faarax Aadan iyo sidoo kale shirkadda iyadu dhisaysa dhismaha cusub ee guriga gobolka ee Cakaara Construction Company Mukhtaar Cabdi Jaamac Star TV Laascaanood